Shaygoosh wuxuu waftigu uga sii gudbay dhanka qabri dahar. waxaan uga soo gudbeen dhanka banka Quraxay iyagoo sii maray daartii sayidku deganaan jiray oo ku taala banka Quraxay iyagoo ku sii jeeda dhagax dhigida ka Maraacato mashruucan Maraacato way ku baxayso 113 milyan oo bir waxa looga faa'iideysan karaa 3,000 oo hektaar oo dhul beerada kadib markuu dhagax dhigay mashruucan Maraacato ayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxa uu wareysiiyay STV oo kaga hadlayay in mashruucan iyo kuwa kaleba lagu soo gabagabeyn doono waxaan ka badnayn muddo 5 bilood مشروعا نضا وحويان ومراعته مشروع عقارنا مراعته ويا مركا صار تام بوحويان دولكم waa dhul diin oo aad u wanaagsan togno sida u fadhiyo ama qaabku yahay waa la arkaa meeshan uu kala qaybsan yahay oo dhanka maraacatiyo xudurile uu kala qaybsan yahay taagana laakiin maanta waxaan halka u nimid ujeedada ugu weyn ee halka maanta u nimid waxaweyaan inaan dhagax dhigno mashruucan oo hadda toddobaadka gudihiisa aan bilaabayno hadii waxa weeyaan una توجا بيها قرب شيء فدواتنا وكينين مشروع عاصنا وحويان بقولي 13 مليون بير باكو بحيسه من waxa ka dhigantay 113 milyan oo bir ba halka gelinayna oo mashruucan marka waxa weeyaan lagu hagaajinay geedkana laga qaaday kadibna biyahana lagu maamulay beerahana maxaan ku lagu dawii doon hadii la ilaw marka Maraacato waxa weeyaan biyo xilanka Maraacato muddo badan baan hadal haynay laakiin maanta waxa xaqiiqo ah inaan taaganahay dhagax dhignay micnaheedu ma uu bilaabmay ka dhigantay waayo in la sameeyo nashqada lagu hawlgaliyo lafteedu waxa qaataa hal sano wax ka badan bay qaataa nashqada in la sameeyo muddo dheer bay qaataa nashqadii maanta gacanta lagu hayaa oo shaqada barka kala bar noqonaysa dhig kara waa nashqadii goob kasta wixii laga sameyn lahaa qaabkii loo sameyn lahaa wixii lagu talagalay lahaa waxa weeye maxaan ku rahay banaanka talaabo ka dhigantahay miisaanadii lagu hawlgali lahaana way talaa akoonka ugu jirta shirkadda maxaan ku rahay alfaansiga way qaadatay inay hadda waxa weeyaan cagaftii lagu sameyn lahaa ee qalabkii lagu tayn lahaa way yeelan boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsamay garmadooba aan baqin kalintooy isbiirso balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo marka mashruuc saas ku bilaabmay hadda ka dhigantahay 5 bilood haday u badato inuu ku dhameystiro ama 6 bilood inuu ku dhameystirana waa waqtiga aan ku leeshinay shirkadda inay 6 bilood ku dhameystirto haday u badato oo badnaan 6 bilood iyo 5 bilood inay ku dhameystirto yaan maxaan ku rahay muddo aan ka badnayn 5 bilood bisha dambe bisha lixaad in kala wareejintu ay timaado dadku ay beeraha galaan baa noo qorsheysan oo dhulkan oo dhan oo wada beera ah in maxaan ku raay wada galaan oo dadkii maxaan ku raay ninka sabeertiisa biyaha loo galiyo beer biyo maxaan ku raay markuu doonana isku furi markuu doonana iska xiri yaa ninka sama taqaanaa ee la sameyn ta kale dhulkan waxaan qorshaha kale waxaasna waa geedkan waxaan ku raay waxa weeyaan cadawga ee meesha ka baxay inaan isagana shaqo ka qabano geedkan totally ba aan lagu arkina way noo qorsheysan tahay oo waayo dhulkii laga beeri lahaa geedkan baa haysta marka geedkan laga qaado oo waxa weeyaan dhul meesha ku faafi lahaa biyo ay ku faafeen oo dhan geedkan fadhiya waxaa socda inaan maxaan ku raay geedkan aan ka qaadno oo qorshaha marka xukuumadda miisaaniyadeeda iyadoo isticmaalaysa 100 iyo waxa weeye maxaan ku raay 13 milyan oo bir baa ku baxaysa mashruucan waxa ka dhigan tahay 30 milyan ee ugu horeeyay waa loo shubay shirkadda way haystaa gacanta ku haystaa ee ku hawlgali hadda shirkadda sameynaysa 30 milyan ee ugu horeeyay ee ku hawlgali lahayd kolba shaqada ay qabsatay soo codsani waa gacanta ku haysaa marka waxa weeyaan in hawlgasho kaliya horay afarta mashruuc saasay gacanta uga haysaa haday noqoto kabaka haday noqoto kan wichwachi iyo haday noqoto waxa weeyaan kan goomar intaba liyasabadada lorom baha balantenu wa shaqo balantenu wa shaqo beraho israa'iyo midnimadanu ba
shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo madaxweyne cabdi maxamed cumar maruu ka hadlayay gacan ay samaysteen shacabka ku nool aagga maraacato ayaa waxa uu sheegay inuu tusaale u yahay sida shacabka deegaanku ay diyaar ugu yihiin horumarka ugana gudbaan saboolnimada shalay waxaan soo aragnay dooxada ka bilaabata birqod ilaa hadda dooxadii baan taaganahay ilaa hadda dooxadii waxa weeyaan ka goomaar mashruuca goomaar laga sameynayo iyo kanba laga sameynayo iyo kan wajiwaaji iyo kanba oo kan dhulkiisina aragnay geedkana noo diiday laakiin intaa kale waan soo aragnay dhulkii maxaan ku xataa beeraha laga sameynayay waxaad arkaysay dadka laftiisu inay dad horumarneed yihiin tabaran bay leeyihiin laba tusaalaan soo qaadan karaa maraacato waxa weeyaan togona artaan waxa weeyaan waa kanaal yar oo jeexeen dadku qacantiisa ku jeexeen baa togon isku bedelay taa tusaale waxaa laga qaadan karaa dadku intee lag bay aragti horumarneed tahay waxaa tusaale togii oo waxa weeyaan kii faafaneed togii faafaneed ee awoodiisa la garanayay ayaa waxa weeyaan isagoo xaggan iyo xudureele u socda oo dhoobeyn halkaa ka gelaya qalaafan halkaa ka gelaya webi shabeelle halkaa kaga dara kanaal yar oo ay beeraha ku waraabsadaan bay rabeen markii halkan jeexanayeen marka togii intuu isbedelay waxa weeyaan laba u qaybsamay qaybta xudureele maraysa iyo qaybtan kale waxay maraacata maraysa kadibna ceelogaadan iskaga soo dara saasna ma taqaana togii ku abuurmayo taalifteedu waxay ku tusaysaa tusaale intee lag bay horumarka diyaar u yihiin macnaha dadkan loo qabanaya waxaan ma ka faa'iideysan doonaan tusaale waxaa waa togan si ay u sameeyeen ay waxa weeyaan ay gacanta ugu sameeyeen ta kale kii goomaar baa tusaale waxaa tusaale kii waxa weeye shalay goomaar arkayseen meeshu waxa weeyaan birqod marka la soo dhaafo ee waxa weeyaan wax yar waxaan ku rahaa 2-3 kilomitir la soo dhaafo ama 4 kilomitir ayaa laga sameynaya gidib kale okay marka halkaana kanaal bay dadku ka jeexdaan togu markuu waxa weeyaan uu biyo adag keeno uu buuxsamo waxa weeyaan kuwi ka baxayba waxaan ku rahaa ta kale biyahan si loo malaa shirkadda waxaan kula talin loo maamulo halkan ilaa maraacato cilada lagu arkayo togu waxa weeyaan hadda u baato 1 mitir buu halkan noqonay aad buu yiri 1 mitir iyo badh weeyaan meelaha qaar kood 5 mitir iyo 6 mitir buu hoos u qodan yahay u faafan halka laakiin 2 mitir weeyaan hadda u baato marka 5 mitir ay kala biyaheedii waxa ay tagayaan midigii bidix bay u kala baxayaan way faafayaan waa biyahana soo kormarlaan waa biyo faafay marka si mashruucan dhibaato ugu noqon ilaa iyo buundada in maxaan ku raatay kula ay sameeyaan oo ay waxa weey ilaa inta maxaan ku raatay hoos u qodaan iyo noqonaysa si ay u maamulaan maanta waxa aad iyo aad loogu farxay weeyaan aad baan maxaan ku raayay aan ugu faraxsanahay inaan mashaariicdan iyo waxa weey maxaan ku raayay aan maanta waqti u helo ilaahayna maxaan ku raayay nasiib aan ugu helay inaan furno ama aan bilowno boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsameeyay garmadooba aan baqin talintooy isbiirso balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo ma foga xilligii laga fikiri lahaa wax la cuno waayo khayraadka dihiin deegaanka ka jira iyo dardarta waqti xadirkana dawladdu ku wado horumarka marka la eego waa in lagu taamayo yidhi madaxweyne cabdi maxamed cumar in la gaadho heer dadka dhibaataysan la caawiyo halkan maraacaati iyo deegaanka iyo dhammaanba waxa deegaankeena shabeelle iyo daawi iyo waxa weeyaan web iyo faafan iyo waxa weeyaan waxaan ku rahaa daaqati iyo wadanka leenahay sulul iyo waxa weeyaan tooga ma taqaan leeyahay ilaa erar tooga faraha badan leenahay waa ilaahay wuxuu tala galay inay dadkana waxaan ku rahaa ka dhargaan adduunkana ka caawiyaan oo qabandiinta halkan laga qaado dadka dhibaataysan ee caalamka ma taqaanay aan u geeyno ilaahay ugu tala galay markuu halkan dadka dejinayay laakiin waxaa nasiib darraa inaan hadda ilaa hadda aynaan dadna ka caawin inaguna aynaan ka faa'iideysan marka mustaqbalka waxaan rajeynayaa haddii la yidhaaho raashinka iyo waxa weeyaan deeqda halkan ka soo baxda inay noqoto mid inagana nagu filaata caalamkana laga caawiyo ayaan ilaahay ka rajeynaya oo dadkana ay noloshooda isbedesho wax gaajoonayana aan lagu arkin wax maxaan ku rahay tootila haba yaraatee ka fikiraya maxaan cunaa iyo waxa isaga iyo qoyskiisaba laakiin dad ka fikirayo intuu daawado miidiyaga maxaan ku rahay waddankaasaa dhibaataysan aan caawino fikirka inaan qaadano oo maskaxdeena gasho kaasaan ilaahay ka baryaa haddii aan galinina waan karnaa inaan samayn karno waana wax la hubo in maxaan ku rahay dhici karto dhammaan shacabkana waxaan ka codsanaya inay maskaxda kaa geliyaan ay u soo jeedsadaan horumar muhiimadda xukuumaddu u lugeynayso miisaaniyadda faraha badan lana ay ku qoondeynayso mashaariicahan ayaa waxay tahay in laga baxa saboolnimada shacabka aaggaasna waxaa u bariyay waa samaado oo isku fallaansho ay ku gaadhi karaan
mashaariicahani waxay soo kordhinayaan fursado shaqo oo loogu talagalay dadka aagaas ku dhaqan inay ka faa'iidaystaan balse waxaa looga baahan yahay in iyaguna ruux iyo jir ahaanba ay diyaar u noqdaan waxa aan lugaynan hadda waa shacabka dartiisa hadda intaasoo kilomitir aan maxaan ku rahaa loo lugaynayo intaasoo isha baabuurka aan u saarannahay waxa weeyaan waa shacabka sidii Soomaalnimada looga saari lahaa marka shacabkuna waxa weeyaan waa shacabkii aan ka soo dhaxbaxnay taa intay ogaadaan in lagula maxaan ku rahaa ay garab galaan oo waxa weeyaan shaqaalaha halkan ay istaagaan iyaga u shaqeynayaan cid kale oo meeshan ma taqaanaa waxa weeyaan hadda maraacata mashruuc laga sameynayo dee waxa weeye maxaan ku rahaa iyo waxa weeyaan buundada dadka degan baa iskale kadibna ma taqaanaa dadkii kale deegaanka waxa weeyaan qoraxay waxa weeyaan deegaanka yaa la leh laakiin marka hore dee kii halkan oo gaajoonayo oo isagii ma taqaanaa aan beeran cidna lama korkeenayo waxa ka marka yaa leh adaa leh ilaasho weey markaad waxaa leedahay adigu oo samaysanayso inaad maxaan ku rahaa ilaashato oo waxa weeye mashruucan marka ugu horeysay 113 milyan gelaysa taa micnaheedu mustaqbalka waxa soo bixi shaqooyin kale la arkeen markii 113 milyan xukuumadda halkan ay ku shubtay ku bixiso danta kale maxay tahay weeyaan maxaa dan oo laga leeyahay baa taala danta laga leeyahay dadkan in lagu hormariyo weeyaan iyaguna inay ku dhergaan caalamkan ay ka caawiyaan iyo deegaankaba iyo dalkaba inay ka caawiyaan weeyaan marka taa inta la isla fahmo in maxaan ku rahaa mashruucan iyo shaqaalihiisa iyo sida loo bilaabayo in la hawlgalo boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsameeyey garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo shaqaalaha man powerka ee halkan laga shaqeynaya ee gaar ahaan waxa weey mataqaanaa wixii cudud ku shaqeynaya de meel kale laga kala maaha dadka ka jooga inaad shaqaystaan waa shaqaystaan nin sheekha oo waxa weey mataqaanaa ummadii koofiyadii xiran koodhe iyo ku dhalinyara intuu waa inuu maxaan ku halkan ka shaqaaloobo intuu isqoro oo shaqaaloobo oo waxa weeyaan uu xoogi adikoo taagtaagan hadii shirkadii sida hadda meel badan ka dhacday in la yiraaho waxaan laanahay mataqaanaa ila shuruuci caqabti marka shaqeynayso waxa baantay geedka cid ka qaada cid la shaqeyso shacaba taa marka hadii aad kari weeyaan oo shaqadiiba maxaan ku aad garan weeyaan oo tirahan shaqada ma qabanayno waxay noqon dad qabtay meel kale la keenay taana ceeb bay ku tahay afarta mashruuc la qabanayaba dhowr kun oo qof ba ka shaqaaloobi wallahi waa mataqaanaa ya ugu yaraan 2,000 oo qof way maxaan ku rahaa iyo intaas ka badan mataqaanaa way shaqaaleyn karaan waxa weeyaan dad ah oo shaqeyni oo qaadi mashruucyada faraha badan haday gidibka hadda waarteen imise qof ka shaqeynay gidibada degmooyinka sameeyeen kii hadda aan soo aragnay waxa weeye mataqaanaa hoola laga sameeyo kale teelanka mataqaanaa wax lagu farxay marka dadka howdira garoobano idinka waxa weeye mataqaanaa caabudi iyo maxaa ku rahaayay shaqooyinkii kale mataqaanaa tii shakhsinimo iyo tii kale diiniga idinka wata de shaqadina gala oo shaqeeya oo sheekha laftiisa waxa weeye soo kitaabka akhriya oo hawsha kala wada oo waxa masaajidka tagaya saacada tirfigana waa inuu maxaan ku rahaa xoogiisa ku shaqaysadii xoogiisa ku shaqay isagoo soo shaqaysta masaajidka waa inuu galo isagoo soo shaqaysta waa inuu kitaabka akhriya laakiin inuu meel fadhiyo maaha taana ma taqaan isla qaatay baahiyay aad iyo aad baa mahadsan salaam alaykum iyo sacabadaada lorom baxa balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo beeraho israaciyo midnimadanu baaqna balanteenu يا سعبدادا لهم بحا بلنتينو واشق بلنتينو واشق بيرو إسرائيل من لمدانو باغنا بلنتينو واشق بلنتينو واشق magacayga waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Nuur Hadi mashruucan in muddo dhagahanaga ku soo dhacayay aadna waan sugaynay waxaan soo 190 ma soo dhaweynaynay 100% baan soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay sida uu madaxweynuhu sheegayana weeyaan beeraha hadda aanu sameynay yaani ma garanaysaa hordhaca inay ma garanaysaa tusaale ahaan loo soo qaato aanu yaani u sameynay 1 kilomitir hadda inoo jira adduunka oo dhan baa laga daawan karaa aad iyo aad baan marka ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana la hawlgalaynaa
waana garab taaganna mashruucan waan soo dhaweynaa ka bilowday meel qabalaha milkaafin ilaa maraacato waan soo dhaweynaa waa mashruuc ay bulshadu oomanay u baahnayd waa mashruuc wax qabadka u ah laf dhabarta dhul beereedka marka waan soo dhaweynaa annaga waxaan naga go'an wax kasta xoog baan naga go'an annaga xooggaanna waxayna shaqaysanahaa operatorka waxaan ahay operatorkii dhulkan banaynayay ayaan ahay waxaan ku qoranaa cagaf dhowsir la yidhaha dhulkan nabarka sanana baneeyey imikana cagaf saxgaasi ku jirtaa waxaa iga go'anna dhulkan banayno geedkan qaadnay la waayo kadib markii la soo gabagabeeyay dhagaxdhigga mashaariicahaas ayaa madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo shacabka ku dhaqan magaalada Qabridahar waxaa ciidanka qaranka ee fadhigoogu yahay magaalada Qabridahar ay ku wareejiyeen xiradii afraad ee fadhiisimaha ciidanka xiradan oo ku taala bartamaha magaalada Qabridahar ayaa waxaa ka horeeyay 3 xiro oo kale oo ciidanku deganaa oo shacabka iyo maamulka Qabridahar hore loogu wareejiyay waqti xaadirkana horumarka magaalada qayb weyn ka qaadanaya madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in dadaal dheer kadib lagu guuleystay in xiradan ay ciidanku ku wareejiyaan shacabka iyo maamulka magaalada Qabridahar si ay qayb weyn uga qaadato horumarinta iyo balaarashada magaalada Qabridahar sida loo ogsoon yahay waxa weeyaan dargigi maadaama waxa weeyaan ciidan una ahayn ciidan shacab oo waxa markaa ciidan markaa isagu waxa weeyaan dhibaato ku haya markasta qowmiyadaha Itoobiya gaar ahaan Soomaalida magaalada Qabridahar cid kasta way garanaysaa afarta dhinacba waxa laga sameeyay taqaan xiro ciidan yukaha afarta dhinacba si isagoo dadka markaa waxa ma taqaanaadee ciidan lagu ilaalinayo yaani markaa arintaasna arin khaldan ay ahayd markaa ciidankan qaranka oo ciidan maxaan ku raay waxa weey shacaba oo kabiir shacabka ciidanka hadda dawladda federaalka Itoobiya waa ciidan la dhihi karo waxa weeyaan ama ficliyan ah awoodiisa ugu weyn waa ah inuu ciidan qowmiyadeed yahay oo ciidanka qowmiyadaha dalka Itoobiya oo isku ururay inuu yahay marka taas waxay ku tusaysaa marka hadaba inuu ciidankan yahay ciidan shacab aragti horumar leh aragti shacab leh lahaansho leh dhammaan waxa weeye marka laga reebo xafiisadii oo u sameynay xafiiska marka laga reebo oo waxa weeye hal meel aan ka sameyn inta kale oo dhan waxa weeye ciidankii waxay yiraahdeen anagu hadii meesha waxa weeye horumar laga sameynayo afarta xero ee magaalada Qabridahar ku yaala afartaba waan wareejinaynaa sidaad nooga codsateen baan wareejinaynaa maanta laga bilaabo sidaa korneel ku wareejiyay waxa weeyaan magaalada Qabridahar kordoorka dhex yaalay iyo dhammaan xiriyaha uu sheegay hadii tishilaaba tahay waxa weeye maxaan ku rahaa xirada kale dhankana ay tahay dhammaan xiriyaha dhammaan waxaan ku rahaa oo dhul aad runtii u farbadana inta qacanta dawladda ay soo galiyeen wayna ku mahadsan yihiin wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka qaranka hogaamintiisa ugu sareysa iyo dawladda federaalka waa ugu mahad celinayna dawladdeena federaalku inay tahay dawlad horumarina tusaale cad ba u tahay waa maasantiin sarkaal ciidanka ka tirsan oo ka hadlay munaasabadan wareejinta xiradan ayaa waxa uu sheegay in xiradan ay ahayd mid ay dhiseen ciidamadii kaligitaliskii dargiga tan iyo waagaasna ay ciidamadu deganaayeen kadib markii ciidanka EPRDF ay la wareegeen dalka kana la wareegeen xukunkii kaligitaliskii dargiga balse markii la arkay in horumarka iyo balaarashada magaalada Qabridahar ay daruuri yihiin in ciidanku ay ka jawaabeen codsigii ahayn lagu soo wareejiyay dhulkan isla markaana maanta ay si rasmi ah ugu wareejiyeen dhankooda iyaguna odayaasha Qabridahar ayaa soo dhaweeyay in xiradii afraad oo ku taala bartamaha magaalada Qabridahar lagu wareejiyo shacabka iyo maamulka magaalada Qabridahar si ay qayb weyn uga qaadato horumarka saaka meeshan aan taaganahay waa weeyaanka filadoorki uu dhargigii sameeyay oo ay ka wada hadleen xukuumadda deegaanka iyo midda federaalka ciidanka qaranka oo ay garteen in limaad laga sameeyo horumar laga sameeyo ciidamaduna meelo kale ay degaan oo loo baneeyo si horumar looga sameeyo la isla kuna afgartay ayaa saakana lagu soo wareejiyay oo aanu la wareegaynaa shacab ahaan iyo xukuumadda ahaanba ciidankii oo raalli ana ugu wareejiyay iyada iyo xariyo kalaba waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka gartay sidaa dhergigi sidaa ma garan jirin way sii adkeyn jireen uun dhib unbay u joogeen dhibkaas waan ka raysanay isagoon horey uga raysanay iyagoo joogaan ka raysanay horta hadday kaba baxeen oo guryo dabaqyaa laga samaynhayana waa mahad labaadoo sii socota xukuumadda qalqaalisay iyo kuwa ka yeelay intabana waa soo dhawaynaynaa ilaahayna waa ugu madnaqaynaa annaguna waa ku xamdinaqaynaa waanan si allaale sidii loo gelahayabana raalli baan ku nahay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dawladda federaalka iyo dawladda kililka iyo ciidamada qaranka oo arrintan maanta faraxda leh meesha taagan sameeyey ayagu intay ka wada hadleen isla qaatay inay u baneeyaan kiflidoorkii Qabridahar dadweynaha iyo horumarka
inay u baneeyaan oo laga dhiso horumar laga sameeyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waa ku mahadinaynaa maanta waxa loo soo jeedsaday waa waxbarashadii iyo jahligana in laga baxo gaajadana in laga baxo ammaankana la sugo haddii ayna taa noqonin lagama kaceen kifladoorka sababaha kifladoorka looga kacay cid kastoo Itoobiyaan oo meelay joogtaba hadday yar tahay iyo hadday weyn tahay waan ugu mahadnaqayaa inaan ugu mahadnaqo xilligayga ay gaarsiiyay magacaygu waa Saweyne Cabdullaahi Barkhadle wafdida madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hogaaminayo iyo wufuudda la socota iyo kuwa xilka wareejiyay iyo naf kastoo Itoobiyaan oo arinta raali ka ah waan u mahadnaqayaa badriyo xooluhu ay ku badayino midix biyo ay sadaalo bartamaha wabiyaha qanayaan barwaaqada dhulkooda u bariiri waayo baariyo ku qabasire oo babaajiya مبدأ لغو بليا تعينك أدم يهي وقري وغاتو ووسكون بريان برواقنا كوكاري برواقنا كوكاري هولو بليريو مرغ رئيس بيشا مبدأ لغو بليا تعينك أدم يهي وقري وغاتو ووسكون بريان برواقنا كوكاري برواقنا كوكاري qaybtii koowaad ee socdaalka horumarka cagaaran intaas ayay ku idishahay واشقو بلنتنو واشقو بلنتنو واشقو بلنتنو واشقو بلنتنو واشقو بلنتنو واشقو بلنتنو واشقو